maanta sida sheekheena uu u sheegay maalin weyn oo maalin farxadeed ah oo 30 maalmood oo ramadaan la soo soomay alxamdulillaah ilaahay nabad noogu soo dhameeyay sidoo kale alxamdulillaah meeshaan inaan maanta aan salaadii ciid ku wada dukano isugu nimaado ayadana waa arin ilaahay looga mahad celiyo guusha oo ku yiraahday nasiiyay noona suurta galiyay inaan meeshaan nimaado maanta salaadii ciid fitriga aan ku wada dukano magaaladan mar hore yaa igu dambeysay soo maray magaalo camiran dad aad iyo aad u qurux badan oo fiican ay degan yihiin nolol iyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq oo ka jiray ahayd maanta runtii markaan diyaaradda soo saarnaan soo degaynay kor magaalada fiiray aad uga xumaaday sida magaalada ay u baaba'day sida dadkeedii u guuray oo geedaheedii ay uga soo guryaheedii ay geedaha uga soo dhex baxeen waxaas oo dhan dadku waa dadkii dalku waa dalkoodii degaankoodii waaye waxa dadkii magaaladan deganaay ay uga guureen uga haajireen waxay aaday ammaan la'aan iyo ku takrifal iyo ku joorfal ay nimanka khawaarijta ay halkaan ka sameeyeen oo ayagoon waxba dhowreynin ay dadkii sida daraaddeed magaalada uga tageen maanta alxamdulillaah ilaahay mahadi in magaalada ay madax bannaan tahay wax walba waxay ka dambeeyaan ammaan qofku hadduu ammaan helo oo cawado gurigiisa asoo baahan xataa u dhex sexdo laakiin aanay cabsi ku jirin ama irid lagaaga soo dhaca ama lagu yimaada ama madfac soo wiifay oo kugu soo dhaca waxaasoo dhan haddaanay ku jirin xataa baahidiisu waayo laakiin marka uu cabsanayo wax kasta oo fiican oo mac uu haysto uu cuno haddii goormaa lagu soo geli doonaa goormaa lagu qabsi doonaa goormaa madfac kugu soo dhici doonaa goormaa hadduu ku jiro noloshu waa dhib badnaanaysaa macna iyo dhadhanna ma yeelanayso marka dambe wixiisu haysta inta gacnaha ku qaatay inuu cararo uu meesha ka tago ayuu ku khasbanaanayaa asigoo aan rabin oo gurigiisa gadaal usoo fiirinayo ayuu qofka meesha ka tagaa meel walba gurigaaga hoyga adiga aad leedahay ee aad ku dhalatay ee aad ku dhaqantay ee aad ka dhaxashay waalidka wax ka macno badan ama ka qurux badan ma laha meel kastaa kuugu yaalle sidaas daraaddeed dadka reer gandarsho waxaan sugaynaa ilaahay idankiis inay soo noqdaan magaaladoodii dib u camiraan oo ay dib u dhistaan guryahoodii oo ay degaan dowladduna adeegyadii dadkaas ay lahayd in la keeno ayaa ayadana yaan faraynaa haddii la yidhaha xukuumadda adeegyadaasi hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad in iyo wixii kaloo bulshadaan u baahantay dowladduna ay awooddo markaa dowladduna awooddeeda weli waa iska yartahay laakiin wax badanoo la awoodo oo degaankaana ka maqan ayaa jira